Cabashadu waxay dishaa guusha. Jooji cabashada, bilow isbeddelka. Maxay tahay sababta ay dadka qaarkood u gaaraan guul weyn halka kuwa kale ay sannado badan isla meesha ku sii jiraan? Jawaabtu mar walba ma aha karti, nasiib ama lacag. Marar badan waxa qofka dib u dhigaya waa hal caado oo yar: cabashada joogtada ah. Qofka had iyo jeer cabanaya wuxuu tamartiisa ku bixiyaa dhibaatada. Qofka guusha doonayana wuxuu tamartiisa ku bixiyaa xalinta dhibaatada. Maanta waxaan ka hadli doonaa sababta cabashadu u disho guusha iyo sida aad uga bixi karto wareeggaas. Cabashadu waxay ku siisaa dareen been ah. Markaad cabato waxaad dareemaysaa inaad wax sheegtay. Laakiin dhab ahaantii waxba isma beddelaan. Waxaad ka caban kartaa shaqadaada. Waxaad ka caban kartaa dhaqaalahaaga. Waxaad ka caban kartaa dadka kugu xeeran. Laakiin cabashadu ma bixiso xal. Waxay maskaxda ku qancisaa inaad wax qabatay, iyadoo run ahaantii aadan tallaabo qaadin. Guushu waxay bilaabataa marka aad isweydiiso: maxaan maanta samayn karaa si xaaladdan u fiicnaato? Dadka guulaysta ma diidaan dhibaatooyinka. Farqiga u dhexeeya dadka guulaysta iyo kuwa kale ma aha in aysan dhibaato lahayn. Farqigu waa sida ay uga falceliyaan. Qof caadi ah wuxuu yidhaahdaa, wax walba way iga soo horjeedaan. Qofka guulaysta wuxuu yidhaahdaa, waxaan ka baran doonaa cashar. Dhibaato kasta waxay noqon kartaa caqabad ama fursad. Doorashada adigaa leh. Mas'uuliyadda qaado. Mid ka mid ah tallaabooyinka ugu adag waa inaad naftaada u sheegto runta. Waxaa laga yaabaa inaadan sabab u ahayn wax kasta oo kugu dhacay. Laakiin waxaad mas'uul ka tahay waxa aad hadda samaynayso. Marka aad dadka kale eedayso, waxaad gacanta u gelisaa awooddaada. Marka aad mas'uuliyadda qaadato, waxaad dib u hanataa awoodda aad noloshaada ku beddeli karto. Maskaxdu waxay raacdaa waxa aad ku celceliso. Haddii maalin kasta aad tiraahdo, noloshu waa adag tahay. Fursad ma haysto. Anigu nasiib ma lihi. Maskaxdu waxay bilaabaysaa inay raadiso fursado cusub. Ereyadaadu waxay dhisaan fikirkaaga. Fikirkaaguna wuxuu dhisaa mustaqbalkaaga. Ficil yar ayaa ka fiican cabasho weyn. Uma baahnid inaad hal maalin wax walba beddesho. Waxaad u baahan tahay hal tallaabo oo yar. Akhri 10 bog. Jimicsi samee 20 daqiiqo. Baro xirfad cusub. Badbaadi lacag yar. Maalin kasta tallaabo yar ayaa ka qiimo badan 100 cabasho. Guushu waa natiijada ficilo yaryar oo si joogto ah loo sameeyo. Dadka aad la joogto way ku saameeyaan. Haddii dadka kugu xeeran had iyo jeer cabanayaan, adiguna si tartiib ah ayaad ula qabsanaysaa. Laakiin haddii aad la joogto dad xal raadiya, waxaad baranaysaa inaad adiguna xal raadiso. Dooro dadka ku dhiirigeliya. Dooro dadka ku xusuusiya waxa aad awooddo. Noloshaadu waxay inta badan la ekaanaysaa dadka aad wakhtiga badan la qaadato. Guushu waxay bilaabataa marka cabashadu joogsato. Maalinta aad joojiso inaad sugto xaalad quman. Maalinta aad joojiso eedaynta dadka kale. Maalinta aad bilowdo ficil. Waa maalinta ay guushaadu bilaabato. Xasuusnow. Cabashadu ma dhisto riyooyin. Ficilka ayaa dhisa. Gunaanad. Haddii fariintan ay ku taabatay, maanta samee hal go'aan. Mar kasta oo aad rabto inaad cabato, isweydii: maxaan hadda samayn karaa? Su'aashaas yar ayaa beddeli karta noloshaada. Ha noqon qof wakhtigiisa ku lumiya cabasho. Noqo qof xal abuura. Sababtoo ah dadka guulaysta ma sugaan noloshu inay isbeddesho. Iyagaa isbeddela marka hore. Marka ay iyagu isbeddelaanna, noloshoodu way isbeddeshaa.